السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا قصور لين أكاديمي. مقال كلاو كترسن كورسيني أما عشريني تحناها نقول تلقى لي رايتنجا. عايشة كينن يا عشرة دي هرا واحد كسر هذا الله سيدا إنه كرو قاعد لهين ونحوشين لهين رايتنج سكيلز كين. حرف لها قراءة كين. وحنا سيدا كلا صور شيء إنه المقال كين هرا كسر هذا الله تلاقوين كا أي نوبة هن إنه قادنا سيدا إنه قراءة كين نوبناچين. تلاقوين كلا نوبة بعين إنه قادنا أما إنه راعنا أما حرف لها إنه كتها برنا si ay qoraalkiinu wanaagsanadaan aasaaskeenoo ah waxa kamid ah oo aynu nagu casharkeennii hore ama muuqaalkan hore ku soo qaadanay afar qodob qodobkii koowaad waxa plan inaad planning samayso oo aad qorshayso waxa doonayso inaad qorto qaabka uu yaqaan suuq noqonayo iyo waxa laga doonayaba qodobkeenii labaad wuxuu ahaa inaad organizationka ratingkaaga aad ilaaliso yani inaad organize garayso waxyaabaha aad qorayso si ay u kala horeynayaan iyo sidaas ugu xidhaso sidoo kale waxaan ka soo hadalay oo soo tilmaanay in aad u baahan tahay mar walba inaad muhiimad siiso grammatical range-ka yani grammarka ama naxwaha luqadda aad wax ku qorayso inaad muhiimad weyn siiso ayaynu ka soo hadalnay qodobkeennii afraad ugu dambeeyeen ka soo hadalay waxa vocabulary range yani iyagana ka hadasho vocabulary-gaaga mar walba aad muhiimad weyn siiso oo aad tixgelin siiso mar walbana aad isticmaasho erayo kala duwan oo aad ereyadaada aad horumariso ama vocabulary bank-kaaga mar walba aad increase garayso sidaa darteed muuqaalkeenin maanta waxaanu kaga hadli doonaa qodobkii koowaad ee aanu ku soo aragnay muuqaalkeena hore ee ahaa plan marka doonayso inaad wax plan garayso waxaad u baahan tahay inaad taqaano waxyaabaha aad qorsheynayso tusaale ahaan markaan doonayo maanta inaan qorsheeyo waxyaabaha aan doonayo inaan qabto waxaan marka hore u baahanahay inaan aqoonsado amaba aan si gaar ah u cayimo waxyaabaha aan doonayo inaan qorsheeyo waxaan soo sheegnay waxyaabaha la inooga baahan yahay raynta inaan qorsheyno inay fara badan yihiin inagu waxaan ku soo koobnay ama aynu soo aragnay saddexdan qodob halka inooga muuqdo inaad u baahan tahay inaad qorsheyso ama aad go'aan ka gaadho formatka qoraalkaagu noqonayo yacni qaab nooceeya siiqo nooceeya uu raacaya qoraalkaagu waxaan sidoo kale ka soo hadalay title-ka in lagaaga baahan yahay title-kaaga qorsheyso si uu ekaanayo suu noqonayo iyo nuxurka iyo macnaha uu gudbinayaba sidoo kale waxaan ka soo hadalay task achievement ama achieving task inaad wixii lagu diray aad qorshayso sidii aad ugu guuleysan lahayd sidii aad yani u taaban lahayd u soo taaban lahayd ama aad u gaari lahayd wixii laga rabay ee lagu diray inta marka samayso ee ku qorshaysan tahay mid walbana aad garanayso waxyaabaha hoos imanaya marka doonayso inaad qorshayso sidii aad u gaari lahayd wixii laga rabay ama aad u soo taaban lahayd wixii lagu diray waxaad u baahan tahay waxyaabaha hoos imanaya inaad taqaano waxyaabaha aasaaska iyo dubdhaxaadka ah ee aanad ka tagi karin marka doonayso inaad title samaysato ama aad qorshihii title-ka aad ku jirto waxaa lagaaga baahan yahay inaad taqaano maxaad samaynaysaa tallaabooyin noocyo baad qaadaysaa si aad u qorshayso inaad soo saarto ama aad qoraalkaaga u samayso title fiican ama ciwaan fiican sidoo kale markaad doonayso formatkii aad ka hadlaysay qoraalkaagu formatkuu raacayay ama siiqada uu raacayay waxaa lagaga baahan inaad qodobadan taqaano oo aad maskaxda ku hayso aanad garan karto ka lagaa doonayo adiga aanad garan karto sidaasi la mid ah mid walba tallaabooyinka iyo waxyaabaha u gaarka iyo shuruucda lagaga baahan inaad raacdo waayahay muuqaalkan aynu si toos u geli doonaa waynu faahfaahin doonaa aynu hore ugu sii soconaa markaa waayahay markaynu leenahay waxbaa la qorsheynaya plan ama marka planning la samaynayo waynu maskaxda ku haynaa mar walba inay muhiim tahay cashirkeennii hore ama muuqaalkeennii hore waxaan ku soo aragnay oo aynu nidhi halku dhig baa jira ingiriisiga odhanaya if you fail to plan you are planning to fail haddii aad ku guuldarayso inaad wax qorshayso waxaad qorsheynaysaa inaad guuldaraysato marka muhiimad weyn bay leedahay inaad wax qorshayso planka dadku inta ugu badanna way sahashadaan haddii aad sahashato amaba aad tallaabadaa ka boodana waxa lama huraana inaanad boqolkiiba boqol gaari doonin hadafkaagii ahaa inaad soo saarto ama aad qorto ama aad samayso qoraal xiisa leh oo muhiima inaad soo saarto oo aad samayso amaba aad qorto qoraal muhiima kana jawaabaya baahidii aad qalinka u qaadatay way sida wax loo qorsheynaya hadaba waqti intee lagu baahan tusaale ahaan imtixaan baad ku jirtaa 20 minute baad haysataa ama 20 minute baad loo qorsheeyay wax ku qorto ama saacad baad imtixaanka haysataa imtixaanka wax walba isugu jira qayb wax la qorayo qayb laga shaqeynayo qaybtii qoraalka waxa laga yaabaa inaad 30 minute haysato ma waxaad u baahan tahay 30 minute inaad ku qaadato inaad qorsheyso mise waxaad u baahan tahay waqti ka mid inaad ku qaadato sidee baad si wax u qorsheynaysaa maxaad si qabanaysaa sidee si aad u samaynaysaa qorshaha waxaas oo dhan waxa laga rabaa marba inuu advance si noqdo qorshahaagu oo mar walba markaad ku tababarato waxa laga yaabaa ama wax suuragal ah in marka dambe wax simple ah ku noqdo oo laga yaabaa 1 minute gudahood inaad ku qorsheyso qoraalkaaga dhan soo yaqaanay
marka hore waxa laga rabaa markaad kastoo wax qorayso 5 minutes ilaa 10 minutes inaad ku qorshayso qoraalkaaga soo eekaanay 5 minutes 10 minutes ka haddii aad u qorshayso oo aad siiso waqtiga qorshaha waxa hubaala waxa ka dambeeyay fududaan doonaan oo talaabooyinkii ku dambeeyay fududaan doonaan laakiin dadku markay arkaan hawshii hortaala qoraalkii laga rabay oo hor yaala inta ugu badan waxay sharaxdaan waxa ka muhiimsan inaad wax qorshay inaad wax qorto deena saas darteed ay u ignore gareeyaan ama ay sagan dhatiraan taa ha sameeynin ha sahashini muhiimadda uu leeyahay si good waayahay marka aynu wax qorshayno saddexdan qodob baynu ka hadlayno formatka aynu ku horeyno formatka waxa laga rabaa inaad taqaano different types of formats ka ingiriisiga ku jira imse qaybood bay yihiin waxaa jira format isaya marka qaar inaad isay wax u qori karto waxaa jira article curus baa jira iyo wax la maqaal waxaa jira letter warqaduna waxay kala baxdaa formal iyo informal formal letters baa jira iyo informal letters mid kasta gaar baynu dul istaagi doonaa waxa uu yahay iyo waxa uu qabto waxaa sidoo kale jiri doona report inaad wax report garayso oo lagu raado tusaale ahaan hawsha noocaas ahayd ee saa ahayd soo report garee company-ga iyo organizationska ayaa inta ugu badan isticmaala sidoo kale summary baa jira in lagu raado wax soo khulaaseen cashar tusaale lagu dhigay ama mawduuc lagu siiyay adiga inta lagu dhibo lagu raado soo summarize garee soo khulaasay yani soo koob soo koobis marka mid waliba wax gaar ah iyo talaabooyin gaar ah baa la isticmaalo la adeegsada inta aan ku qoran marka title-ka kan uu baahdaa ciwaan kanna ciwaan uu baahdaa ama wax loo yaqaan article-ku ciwaan uu baahdaa letter-tu inta ugu badan uma baahato ciwaan wax subject la yiraahdo baahata oo inta ugu badan waxa loogu talagalay in qof gaar ah u dirto ee looguma talagelin inay bulsho fara badan ama dad fara badan ay akhristaan sidoo kale maxay reportka isagana wuxuu u baahdaa title waana muhiim inaad title u samayso report summary-gu inta ugu badan haddii la wax soo khulaasay te mawduuci lagu siinayo waxa laga yaabaa inuu khulaaso mawduuci lagu siinayo waxa laga yaabaa report summary-ga isaguna summary-gu inta ugu badan waxa lagu oranayaa mawduuc soo khulaasay oo mawduuc inta lagu siiyo lagu oranayaa soo khulaasay soo koob te mawduucaasina waxa laga yaabaa oo ay u badan tahay inta badan inuu leeyahay maxay title ama ciwaan inuu leeyahay ciwaankaas oo badan inta ugu badan isticmaali kartaa haddii aad ciwaan isaga dhexdiisa aad ka samayso oo aad isticmaashana waa recommended oo marka qaad waxa weeye waa lagu ogol yahay oo waa loo baahan title-ka isaga ka waran title-ku isaguna waxa weeye waa mid kale oo kamid ah waxyaabaha lagaga baahan yahay intaan qoraalkaaga bilaabin inaad qorshayso waxyaabaha marka aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso marka aad qorshayso title-ka waxa kamid ah title should not be dull inaanu title-kaagu noqon mid aan xiiso lahayn yani mid dadku aanay xiiso gelinin oo dadku aan ku qasbaynin mawduucaaga ama qoraalkaaga akhristaan waxaa sidoo kale lagu yidhi title should not be too long title-kaagu waa inaan mid dheer noqon oo tusaale ahaan 2 jumladood isdaba yaalo kale aanu noqon title-kaagu ee hal jumlad ama wax ka kooban ba uu noqdo dhowr weerood isu geysan inuu noqdo waxyaabaha laga rabo title-ku inuu noqdo ama title-ku inuu yeesho title should be easy to remember ciwaanku inuu noqdaa mid si fudud loo xasuusan karo oo qofka markuu maqaalkaaga akhristo aanu noqon ciwaan uu in badan ka fikirayay ee markiiba ku soo dhici kara markiiba isku soo wari kara maskaxdiisa sidoo kale waxa lagu title should be interesting ciwaanku inuu noqdaa mid xiiso leh oo xiiso gelinaya oo qofku intaanu akhrisanaya uu title-kiisa u arkay markiiba ku qasbay inuu mawduucan akhristo sidoo kale markuu mawduuci akhristo kadib mar walba xiiso gelinaya oo ku qasbay inuu ku soo noqnoqdo ama ku qasbay inay maskaxdiisa ku sawirnaato oo marar badan ay ku soo noqnoqdo sidoo kale waxa lagu title should be appropriate title-ku waa inuu ahaado mid munaasib ku ah waxaad qorayso oo title-ka iyo qoraalkaagu haddaan islahayn dee waxa weeye waa arrin mushkiladeeda leh ama waa arrin aan munaasib ahayn title-ka waa inuu ka turjumaa waxa xag hoose ku jira ama mawduucaad qortay iyo title-kiisu waa in islahaadaan tusaale markaad waxbarashada ka hadlayso waa inaad ka hadlin deegaanka hadda taado muhiimadda deegaanka haddana aad xag hoose waxbarashada kaga hadasho waxa weeye appropriate maaha title-kaas yani title-kaasi waxaan leeyahay appropriate maaha title-ka iyo waxaad qorayso ama writing-ku waa inay isku noqdaan maxay appropriate taasina waa muhiim waxaan u geli doonaa achieving task ama task achievement sidee baad ugu guuleysanaysaa ama aad u soo gaaraysaa wixii laga rabay tusaale waxa lagu yiri wax soo summarize gareen ama waxa lagu yiri soo report garee arrin ama letter bad qori ama article baa lagu diray inaad qorto ama adiga iskaaga baa doonay inaad article u qorto ama sidoo kale waxa lagu yiri isay qor baan kugu yiri oo isay baan ku diray sidee baad u sameynaysaa task achievement ama sidee baad u achieve garanaysaa taskiga aan ku diray ee aan ku siiyay hawshii aan ku diray sidee baad uga gun gaaraysaa waxyaabaha muhiimka ah ee u baahan inaad muhiimad gaar ah siiso marka aad doonayso inaad qorshayso sidii aad ugu guuleysan lahayd ama aad u soo gaari lahayd hawshii lagu diray waxa kamid ah bullet points waxa weeye
meelaha laga rabo inaad ka hadasho tusaale waxaan ku leeyahay waxbarashada ka hadal waxbarashadu waa mowduuc aad u ballaaran markaan ku leeyahay anigu waxbarashada ka hadal waxaa laga yaabaa inaan ku siiyo dhowr qodob aan ku ka hadal dhowr ka qodob si gaar ah u dul istaag muhiimadda ay waxbarashadu leedahay si gaar ah u dul istaag caqabadaha waxbarashada ka haysta ardayda ama dadka waxbarashada ka hadal maxaad soo talaa aad soo jeedinaysaa ee aad sidii aynu markaa u horumarino waxbarashadeena qodobadaas la leeyahay maxay bullet points waa laga yaabaa inaan ku siiyo waxa suuragal qofka ku diraya taskigan kaa rabo inaad wax qorto inuu ku siiyo waxa sidoo kale suuragal inaan laguba siinba oo lagu raado adigu wax ka soo qoran waa inaad specific areas waa inaad ka hadashaa waxbarashada oo dhan lagama yaabo inaad soo koobi karto markaa hal mowduuc inaad ku soo koobto aad bay u adagtay marka maxaad u baahan tahay bullet pointska inaad mar walba tixgelin siiso haddii lagu siiyana iyaga aad tixgelin siiso haddii kale oo lagu siina adigu qaar gaara aad samaysato kuwaana aad ku koobnaato oo haddii tusaale adigu aad 3 qodob doorato oo 3 qodob oo kale aad ka hadasho taasina waxay ku tusinaysaa markaa inaanad si wacan u soo diyaar garoobin inaanad serious ahayn ayay muujinaysaa sidoo kale waxaa laga rabaa word limit-ka inaad ilaaliso formatska writing-ka halkan ku yaala mid kasta wuxuu leeyahay word limit la recommend gareeyo ama la raaco oo common ah tusaale markaad letter qorayso kun word haddaad qorto ka war waa arrin aan munaasib ahayn oo aan la mahadin doonin waxa weeye waa inaad qortaa report marka lagu dhahdo ama summary marka lagu dhahdo waa inaad qortaa tee waa inaad isagana taqaanaa word limit-ka oo word limit-ku isaguna sidoo kale waxaa laga yaabaa in lagu sheego lagu dhahdo word limit-ka waa inaad 500 ilaa 700 kale waa inaad ka badan markaad report qorayso markaad article qorayso waxaa laga yaabaa in lagu dhahdo 150 ilaa 200 markaad letter qorayso waxaa laga yaabaa in lagu dhahdo 75 weerood ilaa 100 weerood waxaas oo dhan markaa waa inaad taqaanaa oo aad maskaxda ku haysaa inaad word limit-ka dhaafin xadkii lagu dhigay aanad dhaafin marnaba aanad ka gudbin si aad markaa u samayso task achievement oo haddii aad failed garayso word limit ruleska lagu siiyay adiga waxa weeye task achievement-kii maad samayn bullet points-kii lagu diray lagu yiri meelaha ka hadal haddii aad ka hadli weydana taskigii lagu diray maad achieve garayn oo waxa tahay out of topic mowduucii lagu diray waxaan ahayn bad ka hadashay oo dibadda ayaad uga baxday marka waxaan filayaa imika inaad ka haysato sawir fiican muuqaalkeena kan ku xiga waxaynu ka hadli doonaa qodobkeenii labaad ee ahaa organizing ama organization-ka waxa loo yaqaanay sidii aad u habayn lahayd ee si fiican aad ugu hagaajin lahayd waxyaabaha aad soo qorshaysay tusaale ahaan title-kii baad soo qorshaysay tusaale ahaan waxaad soo qorshaysay qodobiskii aad ka hadlaysay format-kii baad dooratay word limit-kii go'aan baad ka gaadhay mar walba waxaad maskaxda ku haynaysaa inaanad isticmaalin waxyaabihii kale oo dhan waad qorshaysay sidee baad markaa aad u bilaabaysaa marka hawshii baa la bilaabaya in paragraph-kii la sameeyo in wixii kale uu u baahnaay oo dhan la sameeyo markaa muuqaalkeena ku xiga ayaynu ku faahfaahin doonaa isagana aan ku kala dhigdhigi doonaa aan ku sharaxi doonaa tusaalayaalna aynu ka bixin doonaa sidoo kale haddii markaa aad doonayso inaad si gaar ah uga faa'iidaysato oo aad hesho learning materialskii ama waxyaabihii kale ee bugaagtii iyo aad u baahnayd iyo sampleskii sidoo kale waan samayn doonaa waxaad si toos ah isugu diiwaan gelin kartaa markaa koorsadan adigoo nagala soo xidhiidhana badashashada ku qoran si aad markaa uga faa'iidaysato una horumariso una xoojiso qoraalkaaga ama xirfadaada qoraaleed sidoo kale haddii ay jirto cid asxaabtaada ama familygaaga oo qaraabadaada oo aad jeceshahay inaad la wadaagto si ay uga faa'iidaystaan markaa fursadan aqoontan ay u dhaxlaan ratingkooda iyo xirfadooda qoraaleedna ay u horumariyaanna waxaan kugula talinayaa inaad iyagana aad la wadaagto si uu markaa u gaadho warbixinta ayna noola soo xidhiidhaan tan iyo intaynu muuqaalkan ku xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyo